habka sharciga oo banaanbaxyada iyo waxyaabihii lamidana inta doorashadu socota waxaa la soo mari karaa hal hab oo keliya halkaasna waa gobolka Banaadir iyo amniga gobolka Banaadir dib waxaan iska wareysanay arrimaha amniga sida aad ka warqabtaan amnigu waa waxa ugu muhiimsan magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir muddo dheer oo 30 sano ah yaa dhibaato iyo colaado iyo jahawareer ku soo jireen waxaan istusnay inay muhiim tahay inaan amnigeena ku far adeegno waxaa lagu jira xilli adag oo muxuu ahaa dhibaatooyinkooda leh oo doorasho jirto oo al-shabaab uu jiro oo duruufo kale gaar ay jiraan waxaan iska warsanay inaan amniga ku far adeegno muddada hadda la doorashadu socotana dadka gobolka Banaadir ay jooga degan iyo maamulka gobolka Banaadir aanay arrimahan siyaasadda federaalka ah waqti badan iska gelin annagu amnigeena aan u madax banaanaano arrimaha amniga inta doorashada lagu jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir oo oday nooga ahaado aan u madax banaanaano annaguna aan ku kabno shaqooyinka noo daran aan qabanno dadka gobolka Banaadir joogana ay la shaqeeyaan gudoomiyaasha degmooyinka taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha nabad sugidda iyo taliyaasha iyo gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka inay la shaqeeyaan gudoomiyaha degmooyinka ay iyaga amarkooda qaataan awaamiirtoodana ku shaqeeyaan inta kadib inta lagu jiro howlahan sida aan sheegay gobolka Banaadir isaga ayaa u madax banaanaa doona amnigiisa waxaana lagu shaqeyn doonaa awaamiirta iyo talooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir doqa magaalada Muqdisho waxaan maqlaynaa inay jiraan arrimo badan oo magaalada ka socdo oo ay kamid tahay in banaanbax la sameeyo banaanbaxa sidii mar kastaba aan ku celcelino waa arrin dastuuri ah waa arrin biyo kaba dhibcaan ah waa arrin aan la diidi karin inay dadka Soomaaliyeed fikirkooda muujiyaan iyo waxa ay qabaan dastuurku sida arrintaas oo dadka xuquuq u siinaya si la mid ah ayuu iyagana wuxuu u siinayaa waajibaad ay tahay lagu xisaabtamo waxaa kamid ah in la maro habraacyada qoran maaragtay arrimahaas ku tacalluqa oo ay kamid tahay in gobolka Banaadir la soo weydiisto ogolaansho si aan u ogaano cidda banaanbaxa sameynaysa tirada dadka ka soo qayb galaya si annagana aan ugu talagalno baahida ciidan ee u dhiganta si dadka Soomaaliyeed ee fikradooda muujinaya amaankooda loo ilaaliyo marka waxaan u baahannahay cid kasta oo arrimahaas ka fakaraysa sida aan suuqyada ka maqlayno maamulka gobolka Banaadir wuxuu aqbalsan yahay kaliya wixii habka sharciga soo mara oo ogolaanshana soo weydiista ogolaanshaha waxaa kamid ah inaan ogaano yaa sameynaya halkee lagu sameynaa yaa ka soo qayb galaya sidaan ugu talagalno gudoomiyaasha degmooyinka u amarno annagana uga shaqeyno baahi amni oo arrintaas u dhiganta aan u diyaarino wixii intaas dhinac mara waa waxba kama jiraan waa maasantihiin waxaan rabnaa inaan nidaamka ilaashanaan rabnaa inaan waxaan rabnaa gobolkan dhib iyo mushkilad ku filan waa soo maray markaan wixii ka dambeeya inta xaaladahan amni lagu jiro doorashooyinka ma rabno cadowga al-shabaab inuu noogu soo dhex dhunto waxaad ogtihiin inay jiraan dad sooma muuqata oo maqaayadaha isku qarxiyay oo talaasha saldhigyada isku qarxiyay oo degmooyinka isku qarxinaya si arrimahaas ay u soo laaban waxaan rabnaa in habka sharciga la soo maro habka sharciga oo banaanbaxyada iyo waxyaabihii lamidana inta doorashadu socota waxaa la soo mari karaa hal hab oo keliya halkaasna waa gobolka Banaadir iyo amniga gobolka Banaadir